نواد كذا ها كوسة علمية هاي سؤال أنا بشيخ إنه كويديو هاي سؤال وحيتها هي أنا يقف حاسكي قال لما ملك الدقيقة هاي هاي أنا حاسكي لما مقالن كلا دقيقة هاي واقرت شيخ هران لويدية مركو شيخي waxaan ku dhahnay xaaskaygii aniga computerka kaamarada ma laga wada raaxaysan karaa هاي haayuu dhahay هاي raaxadii waxay tahayna muu macnayn oo ma dhihin ma sawir suuradeeda ku raaxaysan kartaa ma codkeeda sheekadii raaxu ku bad uu ku soo gabagabay sheekii kale واقرت sheekh raaxada waxay noqon kartaa mid ciyaar suuqnimo ay noqon kartaa mid suurad ay noqon kartaa sheekh waxaan joogaa Jarmalka واقرت sheekh naqlaan baa ka dhacday waxaan doonayaa naga cadaan guursada sheekha macaadida gabdho dhahay jarmalka waa arka dhahay nin la'aan ka dhacday jarmalka ra'yigaaga muxuu yahay naqlaan baa ka dhacday aniga hadda gabdho isoo waceen aqaan allahay nin la'aan ka dhacday wax la guursado ma leh marka halkaas waxba lacag badan bay doonaysaa ha ma naam taariibkii lacagtii taariibkeeda ka bixisay doonaysaa naam halo ha الشيخ ميا ها سؤال بقى شيخ وديني أيوه. سؤال وديني يا شيخ هاي ويدي شيخ عاصمة لي موتاي واقرت مركا وان استفسيغ ذو حلاينا هاي مركا maxay ka qabtaa shuruucada islaamku ma xaraam baa mise ما بنانا أرتاس ما بنانا حرام وي وضرر اللي هذا هاي ان شيخ لنا شيخ لنا يقول تبعي واقرت ninkii waxa isku qabsanay woo furuuxo ilahay laba dalaaqad ay iga furantaa oo dhahay واقرت laba dalaaqad oo magac sheegay ma ka furmaa sheekh adigu kul hadlay sooma adigu ku sheeg sooma magac inuu sheego adigu hortiis ma taagnid aniga hortiisa taagnaa iyo laba nin oo marxaati ah waa furanta ka furanta waa ka furana ma ha caasho heblaay ima dhihin ما shardi maaha markay maqan tahay waa markuu islaamo badan qabo iyo markaa maqan tahay magac inuu sheego laakiin hadda adigu qof kula hadlay ay tahay waa ku furanta waa kaasa marka haddii wax nii dhiman yihiin rajacta ha jira haddii wax nii dhiman yihiin ha soo laabto haddo aabahay raali sheekh usuuli ilaah ku barakeeyo maasha allah waa hooyo Soomaaliyeed oo joogta Muqdisho بارك الله فيك اختي جزاك الله خير sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su'aal mid kood waxa waaye sheekho waxaa jirto xaasa ahay xaajiga marka xoogaa waxaa waaye dadka aan lacag badan aana bixinaynin marka kasta biil oo kaleeto bixinaa marka sheekho biilkaas haddii intaa wax aan ka dhex bixiyo aan hagbad ku galo familiga iyo guriga waxay u baahan aan dib ugu soo celiyo sheekh dambi miya نعم اختي ان waxa aad beeqaamsatid oo meel dhigatid ala askale wax fiican way oo wax fiican aad sameynaysaa gabadha oo xaafidada ah oo ilaalinaysa guriga oo maalka rag kabayso wax fiican way laakiin akhlaaqda waxaad muddaa diintana ku banaynaysaa wixii lagu siiyay waxa meel ka dhigatid askale asaga wuxuu ku talagalina marsuuf hadii allahumma hadii aad dadka aad cuno qabateen ku sameynino ilmi aad cuno laan dhigin oo odayga aad cuno laan dhigin markaas xaqooda ku xad gudubta gaar way laakiin wixii aad adiga ku soo haro waa leedahay ama wixii u baahan tahay ziyaadada waa ka qaadan kartaa xataa xadiiska Abu Sufyaan hindi uu tiri bakhiil waa ninkan wax ma bixiyo jaabkaaga wixii ka kaafi ka qaado uu yiri marka xadiiskaas aqsigiisa waxa laga fahmaa ina wixii ku soo haro marsuufka daaleen laakiin akhlaaq alhaam ma wanaagsan tahay odayga bareed uu soo ogaaday islaantii lacag leh soo shaki ma ka dhalan karan halkaas oo sida gabadhan lacag marsuuf yaraa sii jirtay laageen hadda sameysay halkay ka keentay dad kale ma siiyay dhibaatay leedahay akhlaaq ma wanaagsan bal inaad isku kalsoonataan aad u sheegtid aad tira waxa isiisa wax ka baxsaday oo kula ogaado wax fiican tahay insha Allah taasaan kula talinaya dhinaca kan halo السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ usuuli waxaan rabay laba su'aal inaan ku weydiiyo tan koowaad
midda koowaad waxaan rabay shiikow dhalinyaradan oo yaryar oo tababarka loo qaaday oo haddana Ethiopia la geeyey oo gaale dagaalaysa dhexdooda la geliyey dagaalkaas ka qayb galay arrintaas diinta maxay ka qabtaa midda labaadna madaxdii oo aan dadkii la hadlaynin oo waalidiinta barooranaayo dadka muslimiinta ahaayeen ilmahoodii la qaaday arrintaasna diinta maxay ka qabtaa sheekh soo dhow akhi masalada hore waxa ilmaha la qaaday waa arrintaas caddayn ay u baahan tahay bayaan ay u baahan tahay saan sheegay haddaan ka hadlayni shahaado zuurnimada waxaa ka mid ah war kasta loo iska sheegay in la iska qaato oo waxay u baahan tahay qofka inuu caddayn u helo caddayntana waxaa la yidhaha albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar caddaynta marka hadda dowladda xaggeeda saaran tahay dowladda laga raba inay caddayso ay la hadashiiso carruurtii ilaan waddan kale ay jiraan military waa wax in la qorto dhib ma laha laakiin inay cala alaqal walwalkaas ay waalidiinta ka qaato waa mas-uuliyii saaran wey hadday ka cabsan mas-uuliyad ka baqaan warka aan dhamey akhiisu ay ka baqaan wararka banaanka laga sheegay hadday ka aamusaan dadka shakiya galaya marka waxaa wanaagsanna nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu noo sheegay inahaa safiya markuu jidka la socday xaaskiisa habeenkii uu ictikaafka ku jiray laba nin arkeen ay carareen nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ku yidhi calaa rislikuma inahaa safiya maxaa wuxuu ka baqay nabiga calayhi salatu wasalaam nabiga calayhi salaam naag mugdiga la marayso hadhow dadka ku sheekaysan xalan talo naagtii qofka uu dumarku la taagnaa laakiin nabiga wuxuu yidhi xaaskayga waa ogaada asaa u wacay waa ka carareen oo saa u yeeray macnaha waxaan leenahay diintu waxay qabtaa hadduu shaki yimaado qofka mu'miniinta shaki in laga qaado shakigan waa iska sahlan yahay ayadoo la siin karin ayadoo la dhihin waxaan dadaa ka dambeeyay dadaa ka yeelin in caddeyn la raadiyo ay dowladda bari yeesho ay tiraaho dowladdii la hadasho ay tiraaho nin kasta waalidkaaga waalidiinta la shirto ay tiraaho wiilkaaga waa kana telefonkiisa la hadal waa lagu soo hadalsiinaa dowlad ilaan dadka aakhira ma jiraan adduunyay joogaan meesha reemaha ka joogaan hadday aakhira jiraan ay dhacdeen inay sheegaan markaas wixii diye ay wix maka dhow wixii waalidka ilaan wax bini aadam nafo wax laga hadlayo marka taas waa ka السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وأوبرته. ها. شيخ لو سؤال أنا ربنا كويتي الدول اللي تنكوات. هذا ما كان هبين دوت واحد يسأل سؤال من كويتي ولا يهي على حرانا يعني هو بيت. ها. مركا وافهم من بدو قفك أصلاً أوكي لو سام شغل كله أنا أقول ليه كراكي وحسب ملهم. laakiin markii uu ogaado in xoolihii ay xaaraan yihiin soo kuma wanaagsaneen inuu xoolihii iska celiyo wixii hore uu isticmaalma inta uu ka haayo inuu xoolihii iska celiyo soo ma ahayn baab warac waa kaas laakiin xalaal iyo xalaash kuma xiran waan sheegnay xool maalka niri nin kale arkaya asna walaal u dhahayo wax cayn kama hadlaan xoolaha qamar lagu siiyey ama wax riba ah oo lagu siiyey wax kama hadlaan waxaan ka hadlaa maalka kasbiga ayuu ku xalaaloobaa oo ku xaaraantoonaa haddii adiga lagu hadiyeeyo cid ku weydiiso waxaa leedahay yurub maa joogta adiga gaalada lacagtii hadda ay bixisa ceerta u bixisa halkee ka keentaa xalaalay kusoo shaqaysa mase xaaraanay ku keenta labada wax waa kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ninkan waxa uu gaalada iyo nin dowladda waxay bixisay waxay bixiyay adiga waxa wax ka qaban kartid ma aha laakiin akhi ani waxaan ka hadlayaa maalka kasbigiisa qabasho kuma xirna fiir hal wax yadan kaa dhex galo anigoo nin la soo dhacay oo gurigiisa xabad looga dhacay oo la isiya waxba ka ogeyn maalintaa ogaado in la soo dhacay waxaa aniga laga rabaa wix inaan celiyo laakiin waxa aad ku iibsato lagu soo celinaa laakiin soo ma qaaliga waa ku celinaa waxa ka iibsatay lacagtaada lagu soo celinaa ma xaaraanta ma wixii xalaasheeda maaha waxa hadday waan ka hadlo waxaan ku yidhi maalka kasbigiisaan ku yidhi laakiin hadday waxa ay yihiin waxa oo cayn xaaraantooda cayn sida qamri maal la soo dhacay oo qof kale daba taagantaho la haysta hadday tahay kaas waxa weeye haddaad gadatidne waxa u leeyahay dinka maxaa u kaalmaysa laakiin xoolahaaga waa in lagu soo celiyaa oo aad wax ku gadatay laakiin beecaas ma ansaxaya la leeyahay oo ma aha laakiin macnaheeda ma aha qaadasho akhi asalka qaacidada asalkeeda qaado daliiladeeda u laabo haddaad daliil rabtan daliilkeeda u laabo maalka qofka asalka qofka usoo gola aabbaha hadduu baar qamri ka shaqayn jiray maalkiisa waa dhexli kartaa haddaa warac u diidin adiga ma dhehaysa aabbahe baar qamroo lahaa maalkiisa dhexal ma gala ma dhihi kartid maxaa yeelay dhaxalka waxaa lagu qaataa ubuwa iyo bunuwa lagu qaataa cunug ahaana u dhexlaysaa meeshuu ku keenay maalka asagaa lagu xisaabtama